أنا إذا نسيت أسوق على بريور تيجي كوبات كديك دونا طبعا هدي أن أبني جرين أو أن أرجع حسدا ديك ميرة تدا أن أمد الله قبان وحنقنا هنا وحبك صورة تجلي دونين دمان وحيابها الله سمينا أيو سدا سدرادة وعن حوجين يسوق جي دونا الله دجالن كأرجع حسدا يعد والبا الليتكو أبني كصوماليا وعن ربا إن أن بقاديو عربا سدا أسوق على أيد أنا إن أن بقاديو جزية شعيرة كحوجة دلك الصوماليات oo runtii ayagana halgan guud ku jira si umadooda ay ugu bixiyaan barwaaqo iyo nabad naftooda iyo dhiigoodana u bixinaya dabcan qofka bini'aadmiga waxa uu bixiyo waxa ugu qaalisan waa naftiisa sidaas daraadeed waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin hawl weyn ayaad soo wadeen walina haaf ayay idin joogtaa dhamaystirayna idinka rabtaa waxaan rajaynayaa inaan si wada jira u dhamaystiri doono haddii ilaahay ogolaado waxaan rabaa sidaas oo kale ayagana daraawiishta dawlad goboleedyada oo runtii ayagana la dagaalanka iyo abniga qayb weyn ka ah oo ayagana runtii aan dhihi karo aad iyo aad u mahadsantihiin inkasta oo ay ku kala xoog badan yihiin dabcan oo ciidamada badan oo daraawiish ay joogaan isteediyada qaar koor oo aad ula dagaalama ababa difaaca goobo badanna difaaca dagaalka qawaarijta lagula jarna qayb ka ah ayadana waxaan rajaynaa insha Allah taala maamuladu inay qayb ka qaadan doonaan dib u xuraynta dalka iyo la dagaalanka argagixisada ilaahay idankiis waxaan rabaa sidoo kale ayagana inaan runtii kaalintooda aan la ilaabi karin halkan ka xuso ciidamada dib u xuraynta deegaanka oo ayagana runtii qaranka hore garab istaagay kadib baaqii madaxda qaranku ay soo jeediyeen bulshada Soomaaliyeed garab istaagay ciidamada qaranka garab istaagay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii dagaalka ka qaata qayb aad iyo aad muhiim u ah aaminsanahayna ilaahay idankiis haddana inay qayb weyn ka sii qaadan doonaan annagana ka ciidan ahaan iyo ka talis ahaan iyo ka hay'ada amni ahaan waxaan la garab istaagi doonaa wax allaala iyo wixii karaankeenna ah oo aanu kari karno maadaama waxa ay u dagaalamayaan ay yihiin amniga dalkan mas'uuliyadiisina ay anagana saarantahay